conflict. As the ICU became marginalized, a more radical splinter group emerged, Al-Shabaab. Prepared to use violence, it took control of vast swathes of the south of Somalia. إلهي isku xiran oo Ilaahay rumaysan oo kitaabkiisa isugu imaanay marka qofka muslimka waa wax laga rabo gaar ahaan laakiin amalka maanta aan ku jirno anaga gurigeenaba nologu yimid oo waa nalagu soo duulay anagoon idna aadin maanta aniga kuma duulin Ethiopia kuma duulin aniga Kenya kuma duulin aniga waxaan joogaa masqat raasi meeshaan ku dhashay baa joogaa oo la igu imaanaya oo la igu dulminaya marxaladda tan aniga waxaan iska difaacaya oo aan iska celinaya cadow igu soo duulay oo banaanka iga The areas under Al-Shabaab control became more stable. But in 2011, a foreign power intervened again